Waxaan wanaagsan daawadayaal barnaamijkan waxa ku soo qaadan doona dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyay ee dagaalka gobolka Karabakh duqeynta magaalooyinka waaweyn ee sii socota caasimadda gobolkaas oo shif beeshay iyo Ruushka u jihaystay dhanka bilaabida waawaanta waxa si ballaaranaya aagga colaaduhu ku dhex marayeen Jamhuuriyadda Armenia iyo Azerbaijan isagoo dagaalkii soconaya u gudbay bandaqado kale oo rayidku degan yihiin oo labada jamhuuriyadood ku kala tirsan kana baxsan gobolkii lagu dagaalamayay ee foodo la isku saaray ee Karabakh xukuumadda Azerbaijan waxay sheegtay in gudaha Armenia laga soo riday gantaalihii shalay axadii ku dhacay magaalada Khinja oo ah magaalada ugu weyn dalkaasi marka laga qiyaas qaato tirada dadweynaha ku nool halka waana magaalo 100 kiiloomitir oo kaliya u jirta gobolka dagaalku ka socday ee Karabakh waxayna Azerbaijan intaas ku dartay inay jawaab rasmi ah ka bixin doonto iyadoo bartilmaameedsanaysa goobo muhiim ah oo ka mid ah dalka Armenia si kastaba ay ahaatoba dagaalkan labada dawladood ka dhex socda ma aha mid cusub balse waa mid mar hore soo bilowday oo ku saabsan diin waddanka Azerbaijan waa waddan muslim ah sidoo kale Armenia waa waddan Kristaan ah waxaana kala taageeraya quwado waaweyn oo kala ah Ruushka oo taageeraya Armenia iyo Turkiga oo taageeraya Azerbaijan haddaba sidee uga aragtaa xaaladda ka soo cusbanaatay gobolkaas commentiga nagula wadaag mahadsanid